kusoo dhawaada Dhuusamareeb. kusoo dhawaada Dhuusamareeb. Dhuusamareeb kusoo dhawaada Dhuusamareeb oo ah magaalo amniga weligeedna amniyeed. adar Dhuusamareeb waxaa ka socdo diyaargarow xooggan oo aad aragtaan oo kusoo dhaweynayso marti heer qaran iyo heer gobol oo runtii ay ka mid yihiin madaxweynayaal ka mid yihiin ra'iisul wasaareyaal ka mid yihiin guddoomiyaal baarlamaan madax oo dhan ay kusoo dhaweynayso waxaa ka socdo dhismo waxaa ka socdo gogol wanaagsan waxaa ka socdo haddii ilaahay kuu roon yahay nabad iyo inay soo bandhigto baraare inay soo bandhigtaa ka socdo Dhuusamareeb. heegan baan u nahay soo dhaweyntooda guryaha baan uga baxaynaa oo soo daadihinaynaa si sharaf badan oo wanaag badan ayaan gacmo furan iyo qalbi furan iyo walaalnimo furan ayaan ugu soo dhaweynaynaa. ideas ka noocan oo kale ah waxa lagu qaban jiray waddanka dibaddiisa Djibouti oo kale hadda laakiin galmudug in la keeno waxay cadeynaysaa inay galmudug awood u leedahay ay leedahay infrastructure-ka iyo facilities-ka ay haysato iyo human capital-ka shaqadan qabalahay ay leedahay. waa xaqiiqa Dhuusamareeb markaan shir kasta waa marti geli kartaan isleeyahay. waxaan leenahay marka hore magaaladan magaalo nabad waaye magaalo nabadoon dadkeeda iyo deegaankeeduba ay jecel yihiin inay hore u socdaan waayo magaaladaani soo dhawaadaan leenahay cid kasta ee ku soo kordhaysana waxaan jecelnahay inaan ku soo dhaweyno insha Allah magaalo nabad ah oo booliiska iyo ciidamada kale ammaanka iyagoo isgarabsanayaan ay ka shaqeynayaan leenahay soo dhawaada. waxaa leenahay marka waa darto martida nagu soo socota soo dhawaada waxaa u diyaarinay adeeg heer sare ah inuu ku caweysiin oo farxad ku dareentiina rajaynayna. madashii sagaalaad heritage ay sanadlaha ahayd ay ku qaban jirtay dalka Djibouti ay markii koowaadna ku qabatay caasimadda Puntland ee Garowe inaan ku qaban doono markii labaad dalka gudihiisa sanadkan caasimadda dowladda galmudug ee Dhuusamareeb kusoo dhawaada caasimadda galmudug ee Dhuusamareeb.